ku xalinaysa xaaladda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed, musharaxa xisbiga wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro, gudoomiyaha xisbigaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan, madax dhaqameedka beelaha Somaliland dega qaar ka mid ah oo ugu horeeyo Boqor Cismaan Maxamuud Boormadow iyo ugaaska guud ee beelaha Samaroon. Dhammaantoodba waxay caawa ku hooyanayaan magaalada caasimadda u ah qoomiyadaha Itoobiya ee Addis Ababa. Sidoo kale waxaa magaalada ku soo wajahan madax ka socota Somaliland, waxaana suuragal ah inuu yimaado madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. wadahadallada magaalada Addis Ababa uga furmaya xukuumadda Muuse Biixi Cabdi iyo beesha dhulbahante waxaa hor yaalla shuruudo adag oo xilligan aanay Somaliland furi karin. Biixi waxa uu ku qasban yahay markan inuu si khasaba ku aqbalo shuruud kasta oo hor dhigaan mucaaradka iyo beesha uu xasuuqay ee dhulbahante. Gudoomiye Khaliif ma jirto wax nasteex iyo wanaag oo ka dhaxeeya xukuumadda Muuse Biixi, maadaama ay hore ugu eedaysay falal wax u dhimaya sumcadiisa. halka Cabdiraxmaan Ciro iyo Xirsi Cali Xaaji Xasan cadaadis ku saari doonaan arrimaha doorashooyinka madaxtooyada iyo xal u helidda mushkiladda ka aloosan Laascaanood. sidoo kale ugaaska guud ee beelaha Samaroon iyo Boqor Boormadow ayay colaad gaamurtay dhex taallaa Muuse Biixi Cabdi. dhammaantoodna waxay kaga horreeyaan dalka Itoobiya. dowladda Itoobiya oo ka wakiila waddamada beesha caalamka waxaa sidan xogta ku helay la siiyey awood buuxda oo ah inay Laascaanood ku xalliso awood siyaasadeed ama tallaabo militari. waana haddii dhinacyada wada hadlaya waxba ku heshiin waayaan. ciidamada nabad ilaalinta u ah Soomaaliya ee ka socda Itoobiya ayaa imanaya Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. sidan waxaa hore beesha caalamka uga codsaday qaar ka mid ah garaadada beesha dhulbahante. daawade waxay kula tahay adiga inay ku